labada xisbi shalay noo sheegeen mucaaradka madaxweynuhuna sheegay ku dhaqankooda inuu go'aan ku salaysnaado inaynaan keenin wax ka baxsan wixii caalamku inagula taliyo inoo soo jeediyey saddexda xisbina ay ogolaadeen inaynaan inagu aynaan haddii aan la yidhaha bawjeexin oo aynaan wax kala la iman oo aynu ku fadhiisino kororsiimadeennu ay ku fadhido aynu kordhinaynaa ee ujeedadeedu ay tahay inaynay dawlad la'aan inagu dhicin ilaa ujeedadeennu anigu halkaa waxaan siiqadii ay u qormi lahayd iyo sidii aan u soo dhignay baan halka ka akhriyaya asbaabaha aynu cuskanayno xaaladda tan iyo go'aankan aynu gaarayno iyada oo aan la ogeyn ama la garanaynin dubusixidda waqtiga ay qaadanayso ama inta ay qaadanayso dalka oo aan loo baahnayn inuu ku dhaco dawlad la'aan ama vacuum isla markaana tixgelinayna tala soo jeedintii beesha caalamka sidoo kalena aragnay aqbalaadii golaha xukuumadda iyo xisbiyada qaranka sidaas darteedna muddo kordhinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay ka bilaabmaysaa 29 bisha 10aad 2009 ilaa bil kadib maalinta ay qabsoonto doorashada madaxtooyada intaasi kadib ayaa gudoomiyaha golaha guurtidu cod gacantaaga u qaaday kordhinta muddada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyadoo la waafajinayo heshiiskaasi ay xisbiyada iyo xukuumaddu isla qaateen inta ogol arrintaasay gacanta taagan markii codkaasi gacantaaga ahi uu dhacay ayaa waxa jawigu ahaa sida tan waxaynu ku fadhinaa 78 xubnood baynu ku fadhinaa 78 xubnood baynu ku fadhinaa waxaa ogolaaday 7 maryaa qaylinaya waxaa ogolaaday 7 gudoomiyuhuna macday ma jiraan diini kaamusaadina ma jirto anna ma codaynin wuxuu ku ansaxan yahay guurtida ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inay muddada u kordhiyeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma jirto muddo cad oo ay ku dhawaaqeen tira ahaan ay sheegeen hase yeeshee waxay sheegeen in marka khilaafaadka iyo guud ahaan beesha caalamku qodobadii ay soo jeediyeen ay aad u tixgeliyeen ay kordhiyeen muddada doorashada waqti bil ku siman ay noqon doonto mar walba oo ka bilaabmaysa waqtiga imika madaxweynenimada iyo madaxweyne ku-xigeenka ay xilkoodu ku eeg yihiin oo ah 29 bisha Oktoobar hase yeeshee gudoomiyaha golaha ayaa waxa uu sheegay in guddoonka golaha guurtidu ay shir soo yeesheen isla markaana la fagureen xaaladda uu Soomaaliland ay ku jirto waqtigan go'aankan ayaana jirin cid diiday cid ka aamustay waxaana 7 mudan ay ku ansixiyeen ogolaansho